caawa waxaan halkan ka soo jeedinaynaa arrinta ku aadan coronavirus iyo maamulka gobolka Banaadir waxyaabihii ilaa iyo hadda u qabsoomay oo ku saabsan ka hortagga arrintaas sida ay sheegeen khubarada caafimaadku coronavirus ama COVID-19 ma lahan daawo rasmi ah oo lagula tacaalo balse waxay ku taliyeen in badan lagu dadaalo sidii looga hortagi lahaa mar haddii ka hortagii la waajibiyey oo talooyinkaas ay bixiyeen khubarada caafimaadku waxaan xoogga saarnay haddii aan nahay maamulka gobolka Banaadir si aan bulshada Soomaaliyeed ugu baraarujin lahayn sidii ay ugu dadaali lahaayeen ka hortagga caabuqa COVID-19 arrintaas waxaan samaynay wacyigelin ha ahaato boorar lagu dhejinayo isgoysyada ha ahaato goobo la geeyey yacni agabka gacmaha lagu dhaqdo ha ahaato qalabka afka lagu xirto maaska ah ha ahaato gloveska iyo baraarujinta bulshada oo aan u sheegnay dadka inay kala fogaadaan intii suuragala inay guriga joogaan iyo inaan meelaha zaxmada ah oo ciriiriga ah kulamada aan la isugu imaanin muddada lagu jiro ka hortagga caabuqa COVID-19 runtii waxaan diyaarinay oo kale oo taas dhinaceeda socda team ama koox loo tababaray dadka u geeriyooda COVID-19 yani sidii loo aasi lahaa ayaa loo tababaray sidoo kale waxaa loo tababaray oo u diyaar ah macnaha culimo Soomaaliyeed oo bulshada loogu talagalay inay ka wacyigeliyaan yani inaanay ku soo xoomin meydka ama qofka bukaanka ah maadaama cudurkan uu yahay cudur khatar ah oo si fudud bulshada ugu faafi kara culimada iyo dhaqaatiirta talooyinkoodu waxay u yihiin bulshada lagama maarmaan sidaa darteed bulshada Soomaaliyeed waxaa looga fadhiyaa inay u dhuga nuglaadaan talooyinka iyo irshaadaadka ay bixinayaan dhaqaatiirtu isla markaas yacni sidii loo aasi jiray meydadka ama loo booqan jiray bukaanada si ka duwan in loola dhaqmo qofka buka yacni usoo dhaca yacni cudurka la yidhaahdo COVID-19 sidoo kale qofka u dhinta yacni in janaasadiisa aan la soo buuxin oo yacni janaasatul ghaib la tukado yacni isla markaas yacni qaabkii loo aasi jiray meydadkana wax badan ayaa laga bedelay oo anugu talagalnay in bulshadu ay ku baraarugsanaadaan waxyaabaha bulshada laga wacyigeliyo waxaa ka mid ah goobaha yacni la isugu imaanayo oo mataqaana aan yacni la soo buuxin oo goobaha zaxmada ama ciriiriga ah yacni aan la isugu imaanin qofka oo markuu hindhisaayo loogu talagalay yacni inuu ama mataqaana tiish ama naabkiin oo ku hindhiso ama se oo mataqaana xusulkiisa oo afka saarto marka uu hindhisaayo saas oo kale waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin talooyinka dhaqaatiirta oo aan mar walba u gudbino bulshada Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan halkan uga soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed maadaama xaalad adag lagu jiro mar walba inay diyaar u noqdaan u dhaga nuglaadaan talooyinka dhaqaatiirta ay siinayaan iyo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya taas ayaa raba inaan idhaahdo wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum.